ummadaha dunida ummad kasta suugaanteedu waxay leedahay qiimo aad u weyn. Astaanta jiritaanka ummad kasta waa dhaqankeeda, udub-dhexaadku dhaqankuna waa afka. Halbowlaha nolosha af kasta waa suugaanta. Af la'aan dhaqan ma hana qaadi karo, suugaan la'aanna af ma noolaan karo ama ma kobci karo. Gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed, suugaanteedu waxay leedahay qiimo aan la soo koobi karin oo ay ugu duwan tahay ummado kale oo badan. Laba arrimood ayaa sabab u ah qiimahaas gaar ahaaneed. Sababta koowaad waa Soomaalida oo wax kasta ku cabirta kuna diiwaan gelisa suugaan, siiba maanso. Soomaalidu oo wax kasta ku cabirta kuna diiwaan gelisa suugaan ama maanso ahna ummad hal abuurayaal suugaantu u leh iba aan caadi ahayn oo dunida wada qirsan tahay kuna qiimeysa. Sababta labaad waa suugaanta oo hidda ahaan Soomaalida u gashay. Suugaanta Soomaalidu qiimaheeda waxaan ku soo koobi karnaa waa dhaxalka ugu qadiimsan, uguna sareeya, uguna hodansan ee laga hayo waxqabadka maskaxda Soomaalida ka ab iyo ka awoobay. Waa diiwaanka ugu weyn uguna run sheegsan ee ku kaysan soo jireenka taariikhda Soomaalida iyo habdhaqankeedu. Waa halbowlaha nolosha iyo hodantinimada afka Soomaaliya. Waa dhambaalsidaha ugu saameynta badan uguna waxtarsan ee dadka Soomaaliyeed ku tilmaamaan samaha iyo xumaanta. Waa muraayadda ee bulshada iska dhex aragto kadibna ku daawata kuna qadariso. Suugaanta Soomaaliyeed waxaa ka marag kacay dad u dhashay dalka Soomaaliya iyo dad aan u dhalin dalka Soomaaliya. Tusaale ahaan haddana soo qaadano waxaa ka mid ahaa Ingiriiskii iyo gumeystayaashii soo maray dalka, kuwaasoo ka marag kacayn Soomaalida inay yihiin dad wada gabyaa ah.